taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi Shariif Arwaax ayaa kormeeray fadhiyada guutada toddobaad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ururka afraad ee Commandos-ka Danaba. Kormeerka taliyaha ayaa ujeedkiisu ahaa sidii uu kuurgali lahaa xaaladda dhabta ah ee fadhiisimaha ciidamadan. Generaal Maxamed Tahliil Biixi Shariif Arwaax ayaa kulanka la qaatay saraakiisha guutada toddobaad qaybta 6aad ee ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. waxaana ka mid ah hadaladiisii saraakiishu waa muraayadda ciidanka labiskooda muuqaalkooda aqoontooda garashadooda hogaamintooda waa muraayadda ciidanka lama dhici karto in askartuna fiicnaato saraakiishuna xumaato ma dhici karto mana dhici karto in saraakiishu fiicnaato askartu xumaato ayaduna ma dhici karto hadduu sargaal tababaran oo dhisan oo dishibliin leh sidii hadda ninkii la magac baxay oo kale rag uu wada noqdo askartuna waxay noqonaysaa askar wanaagsan oo dishibliin leh oo wanaagsan. Shilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka gobolka Shabeellaha Hoose.